عليه الصلاة والسلام عباداتك إلهي اللي قلنا وهذا وكمت لما مسلمون انت اسكو خلاف سرين ما جرتو ولما دوحيد هذا محل النزاع عين لك ارتابها بون هذا دركت مسألة اسكو خلاف سيئة وحل اسكو خلاف سيئة اكزاكتلي محويين لك ارتابها في عن النبي صلي جيسو وعباده qofkii badsan kare kaste muslime ha badsado saxaabi baa yimo wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisa markaan ducaysanayo ducadayda gaarka ah rubuc wax ku dhadhoobaan adiga ka dhiga hadaa doonto ka badso buu yiri wuu soo waday nus baa ka dhiga hadaa doonto ka badso wuu soo waday markii dambe yiri hadaa ducado dhan baa adiga salligaaga ka dhigi hadaa ka wada dhigtay buu nabigu yiri hammigaaga ilaahay kaaga filaanaya idan salliga nabigu alayhi salaatu wasalaam iyo badsiga la badsada waa min diin هم قال لك أقف ورور الدور ده بكابايا هذه problem كستا كقبصة أنت هالك فريسة النبي قال لي ساعد بتصطة وكاتجية سو خلاص سكولة شو يدري ما يدري هذا واحد سماية كان سماية هالك هذا فريسة أما تصبيح ستا مسلي النبي قاده وكاتجية إذا سلي النبي عليه الصلاة والسلام ودينته كمديها كالقعل النبي محمد لا تعلادنا ومن الدين بل wuxuu gaarsiisay in lagu amray aabaha iyo hooyada iyo inta dhashay inaad saga ka horumariso ka jeceshahay inaad nabiga jeclaato macnaheedu waxa weeyaan warkiisu inuu kaala weynaado cid kasto kale marka alla laga yimaado warkii isaga inaad warkiisa ka horumariso kamaalul iimaan ama iimaanka dhameystirankiisuna wuxuu ku xidhan yahay sida inuu nabiga u jeclay alayhi salaatu wasalaam jacaylkiisana waxyaabaha tilmaamo waxa kamid ah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن نسجر راعنه سؤال شيء سويدين تلمركها ما أها النبي محمد وينين تيسه كما هذلين قفك مسلم كي كتو دانا وكو قالوا بيا واضح صوت اسمع قفك مسلم كي النبي محمد وينين تيسه كضاد قليا وكو قالوا بيا وهم حي مركا علاد حاجة كجرتها علاد وحي كجرتها maalinta in la xusaamo tahay qaab loo weyneynayo isku wada fursanay inaynu weyneyno laakiin qaababkii layna faray inaynu nabiga u weyneyno maalinta in la xusaamo ku jirta nabigu inooma sheegin isaguna ma xusin saxaabadii la joogtayna ma xusin taabiciintii ka dambaysana ma xusin madaahibta afarta culimada aynu ku naqaanayna may xusin hadda xagee ka timi waa dambay muslimiinta badh ay la yimaadeen taariikhyahanada badh إمام المغريزي في كتابه سوق الطغرانيو waxay soo bilaabantay bay ku tilmaamaan dawlad الفاطمية markii ay joogtay Masar dawladii ka talinaysay Cubaydiyiinta loo oran jiray qolo Shiica ahay ayaa waxay keentay 6 mawlid 6 birthday mawlidku waa birthday 6 birthday in la xuso nabiga alayhi salaatu wasalaam Ali ibn Abi Talib Fatima Hasan iyo Hussein iyo boqorka شنطها إنه نقضه وحل حصية لحدا إنه نقضه وحل حصية دولة دي شيعة هيد بالريدي مركي الريدي نمكي ما يشغب صدي وعلى ورشنت الشيعة أنا نقطور النبي أنا أسكح حسن شنطين وكت كان نوي حسين علماء وقت قوي حكي دم يسوي وحي سويديان والمسألة دني ما كمت هاي وحي دينتو إنه شيء يسمى كمان منها علماء برضو حيدا ورد بكم أجرت هذه النبي قال حصوا كاسي علماء بدن وحيلين وروحني مسؤول لكن أنا هالكلام كل شيء يا وحاصلنا كبحثا هذا ما قشوا مسألة ده النبي قوم الصمينين أما صحابة دي ما صمينا كما صمينين سؤال بنكوي دينية نبي محمد سيدو قال له عابد السكة بدن ميادو عابد كريسة ما أنت أنتي النبي محمد والسميين لما يسوع أنسقون ما النبي ده عمرها صحيح كما ما أنت أنتي النبي محمد كاتو أن سويدين وحى صهر ما بناته مسمى بنانا لكن أنتي بهدارة هينين وحبب بدعة كورب إذا النبي محمد مالين هوية لنا مالين والبكسل عليه الصلاة والسلام إن تصنت كي مالين سكتو أو تناظر مالين تصل مسلمية مالين تتنبن كلام ركنو كأجنو ما لقرنا يا مالين تو إجزاكت النبي يقول الشيء تاريخ دي عربية ده هوري وحيقول لي أنت سيدي تاريخ دي الصومالي ده الصومالي ده بادية كلها لطا سيدي علامة سنشرين لما وحبي علامة سنشرين تضبط كمال أنت كذا شوي علامة سنشرين واحد مغلس هبل السنين مرشي خميس مرشي جمع مرشي أحد مرشي طاو الصومالي ده ملحة وعلامة سنشرين وحي كلها علامة سنشرين
gugii ama dayrtii la dhashay wixii jiray gugii reer hebel lagu duulay gugii hebel dhintay gugii dayrta badnaa gugii cayn ayaa la calaamadsan jiray carabtii jaahiliyaduna saasay ahayd nebi maxamed markuu dhashay calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay maalintuu dhashay iyada wuu sheegay isniin baan dhashay buu yidhi isniintana wuu soomi jiray isniinta iyo khamiisahana wuu soomi jiray markaa wuu sheegay inuu isniin dhashay sanadkuu dhashiyo bishuu dhashay cidi ma garanaysaa sanadkii waxaa la yidhi sanadkii maroodigu maka ku soo duulay buu ku beegnaa marka waa sanadkii maroodiga markaa taariikhda la raadinaya war sanadkaasi halkuu kaga beegnaayo halkaasuu ku beegnaayo halkaasuu sanadkii maroodiga uu dhashay ayay culammada yidhahdeen bisha ma la garanayaa waxay yidhahdaan waxaa loo filaya inay tahay bisha rabiicul awal ahay maalintana isniinta rabiicul awal qola waxay yidhahdeen 12 ahayd taariikhyahanada hadda jooga waxay leeyihin markaa dib loo baadho 12 isniinba maaha nebiguna wuxuu yidhi isniin baa dhashay soo maaha haddaad dib u raacda bay leeyihiin 12 isniin ma haysee la yeelaya axad alxufaad wuxuu leeyahy war 9 ahayd culamo kale waxaa qabtaa 8 marka maalintan 12 waa ashharul aqwaal waa warka ugu caansan ee taariikhyahanadu ay qoraan laakiin exactly inay ahayd maalintaasi xataa maalin la isku waafaqsanyay maaha soo duuduub hadday tay nebiga weynayntiisa maalin walba weynee 12 rabiicul awal ha sugine sanadkoo dhan weynee maalin kasta ku salli maalin kasta waxaad u samayn karta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u samay hadday tahay maalintaasi miyay diinta ku soo aroortay waxa dilla ammaan arag anugu wallahu aclam